بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba, waayo mar kasta waxa maartay maanta dareen cidiiliha ay dareemaysaa Soomaaliya dhibaatada haysata oo aad moodo kolkii ay dawladdu soo yar iftiimtaba inaan lagu kacayo oo la burburinayo si fawdadii u sii jirto oo qof walba uga dhex faa'iideysto oo maartaan dibadna garoon lagu ciyaaro ay noqoto sida beesha waxa loo yaqaan beesha caalamka oo kale garoon ay ku ciyaarto cid walba soo dirato waftigeeda oo hadda darkayso halkay misan madaxweynaha la shirayaan ama ay maartaan la shirayaan ra'iisul wasaaraha ama gobolada ay la shirayaan ama awaamirta ay bixinayaan aad moodo inay dhammaan caalamku wada xukumo maartaan Soomaaliya taasi oo u bixisay idinku beesha caalamka annaan u bixiyay beesha gumaysiga. marka waxa weeyaan runtii Soomaalina garaad way ka yeelan weyday inay maartaan hadba u deeyso cidii dawladnimada loo dhiibo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumadooda iyo wixii maartaan lamada baarlamaanka inay dhinac wax wada wadaan oo ummadda idilada soo celiyaan way Soomaalitaan way iska diiday. waxa la yaab leh inuu maanta soo kiciyay khudbada u jeediyay ninka Sheekh Shariif u jeediyay oo kula sheegayay in maarataanay dawladani hadda uu hogaamiye Farmaajo iyo Xasan Khayre ay ka saari doonaan xamar oo sidii looga saaray shabaabka iyo sidii looga saaray Itoobiyaanka iyo sidii looga saaray warlordski iyo waxa uu soo sheegay si lamida looga saarayo. horta waxaan maleynayaa cid damiir laho Soomaaliya oo maanta arintan maqashay oo aan maartay aan ka dhididaynin ama ka dhidhiyeynina inay yartaan maleynayaa maxaa yeelay shalay isbaa waxay madaxweynuhu ahaa id maartay la dagaalantay ama waati xamar waa laga saarayaa tiri ma jirin waxa kale oo leedna meesha yaala haddii maanta uu maartay say hadda balangeynayaan hadda maanta ka maqlay meediyaha in isaga iyo kooxdiisii madaxweynaha kale ee Xasan Maxamuud iyo niman maartay mucaarado fara badan oo baarlamaanka qaar ku jiray ay ka mid yihiin in loogu yeedhayay Imaaraadka ay maartay Abu Dhabi tagayaan deedna loo ballan qaaday hub iyo lacag wax waxay doonayaan. laakiin Soomaaliya waxaan weydiiyay lacagtaas iyo hubka ayaa lagu dagaalamayaa halkeena lagu dagaalamayaa waxa lagu dagaalamay waa dawladda maanta jirta itaalkeed wuxuu doonaba haadee kulliiba maartaanay naftiba laga saarayba oo aan islaahay yana wax alla waxay ku nool yihiin ba ma jirto sababtoo ah daqiiqad kasta iyo saacad kasta waxay maqlayaan wax iyaga kullid ah oo dawladooda kullid ah oo barnaamijkii dawladnimo kullid ah ayay maqlayaan oo maartaan runtii aad ka yaxaysato mise Soomaalidu saasay raali ku tahay mal joog wax la yaab leh weeyaan. marka sidaa markay tahay marka Abu Dhabi looga yeero aad ogtihiin Imaaraadkuna maanta inay yihiin dawlad yar oo waalatay oo kum calowshooda shaqaysteelaho laga keenay Latin America iyo Australia oo aad ogtihiin ninka wata maartay dhowr jeer oo dhan sheegay uu yahay Eric Brice uu yahay ninka janankiisina Australian yahay oo ciidamadaasi maanta kuwa Yemen baabiya yihiin kuwa Liibiya lagu baabinaya yihiin innagana maanta wax badan oo maartay wadankeena dhex yaala ay keeneen oo ay ka mid tahay qalabka qaraxyada oo dhan waayo maartay inagu shabaab wax qarxiye wax banaanaaye laakiin xaqiiqada marka loo noqdo qaraxyadani waxyaabaha maartay waaweyn ee saldhiga u ah waa wax Imaaraadku keeneen oo diblomaasnimo ku soo gariyeen xamar oo xiriyahoodii geysteen deedna markii dambe maartay lagu rajacidi ku shaqalayd. marka waxa weeyaan Soomaalidu ma maartay aqli yari baa la nabadayaa malaha ma fikiraan baa la leeyahay wadan kama la leeyahay wadaniyada islaamnimadooda waxba kama jiraan baa la leeyahay ma waxaasan masaasan ku qanacnaa oo kii cadhoodaaba ama kii dawladda ka soo horjeedaaba oo Imaaraadka u cararayo oo dawladna uu maartay leeyahay Imaaraadkina leeyihiin wixii aad maartay dawladda ku baabin lahayd baan ku siinayna Axmedowada ogtihiino ay Imaaraadkii maartay la joogaan lacag Puntland bay la joogaan lacag oo wadanka intii badan ma qabsadeen maanta Puntland waxa ka taagan wada arkaysiin ninkii baarlamaanka Puntland haystay oo isna gobol dhan maanta goostay korkii la eriyay oo maartay maanta lagu dhawaaqayo gobol hor leh oo la yiraahdo Maakhir oo ka kooban Sanaag iyo Sool
iyo meesha cayn la dhahday buuhoodla ah intaasina ay noqotay markaa dawlad kale Soomaaliya xageed ku socotiin xagee ku socdaan madaxdeena waxa siyaasiyiintaad ku sheegtaan anigu madaxba kuma sheegi karee halkee u socdaan degodka aakhiro kolkuu qofku dhinto hadduu maarta ilaahay naarta ka badbaadiya uu ku nastaa war god aakhira dhaanta san maanta Soomaaliya ay ku taagan tahay Soomaaliya ay ku taagan tahay god aakhiro oo ilaahay maarta uu qofka naarta ka badbaadiyo oo jannada ugu ballan qaado ayaa dhaanta runtii dawladnimo waa tii la garanayay ummadnimo waa tii la garanayay islaamnimo waa tii la garanayay xageen ka garab marnay madaxdeena maanta waliba rag idiloo ducaada sheegan jiray waxaan idin sheegayaa ragga maarataanay Sheekh Shariif leh maarataanay Xasan Maxamuud leh Cabdiraxmaan maarataanay Shakuur leh Cabdikariim Xuseen Guleed leh iyo rag badan oo ogahay waxay hayaan ra'yiga xataa danay waxa ragii ku jiri jiray dacwad dabay hayaan dacwada ku wada jiri jirnay islaamnimadii xagay martay dacwadii lagu hadaaqay iyo midnimadii islaamku iyo wax iska dhaaf Soomaaliya islaamka lagu hadaaqay xagay martay waxa weeyaan hadda waxay la tahay kolka ay qofka adduunyo qaadato damiirka ka luma hunguri baa ka soo baxa qabiyalad baa ka soo baxda xumaan dhan baa ka soo baxda aan waxaan leeyahay kuwa mucaaradka maanta sheeganina waanu nasteexanaya mar hore waxay iga cabanayeen iyagoo Kismaayo jooga maxaa ku galiyay badaas oo maxaan u galaynin kolka masalan Kenya ay maartay halka ku talinayso ee Soomaali kala qabiinta ka talinayso ee maartay Kismaayo ay noqotay meeshii lagu qaybin lahaa Soomaali marka labaad ee xamarna lagala dagaalami lahaa ee maartay badeed iyo dhulkeedaba la iibin lahaa maxaa lagu aamusadeer anu wadii maartay kulli nin shaqo dawlad ka rabana ma yihi nin madaxnimo ka rabana ma yihi laakiin nin mutacallima oo dadka maanta dibadaha ka dhiga ee professor lagu sheego ku kamid uhun baana laakiin wadankiisa iska jooga oo dareemaya haddii Soomaaliland tahay haddii meel kasta tahay dibta taala dareemaya un baana waxaan idin sheegayaa maanta haddii uu Sheekh Shariif sida ka dhabeeyo oo usbuuca soo socda ama maartay kan lagu bijiraba ay hubka doontaan oo dabeedna dagaal kale ka sii qara xamar dhexdeeda iyo hareeraheeda debal Soomaaliya dawladnimada dambe ee soo iftiimi doonta xagga ka iman doonta isweydiiya ma tudusha lagu sidoo qasab ay ku keenayaan ba mucaaradku iyagana mucaarad kala ku kici doona oo maartaanay diidan waxaan ku talinayaa mucaaradku inay aqli yeeshaan oo ay kan toobaan yaana maartaanay maartay baashan sitaan haan baagan doolarka lagu raadinayo ee Kismaayo la geynayo ee Puntland la geynayo ee xamar la keenayo inay ka waantoobaan oo ay maartaanay Ilaahay tala saartaano ay ku iimaansadaan wixii Ilaahay siiyay arsaaqooda Ilaahay baaye ay maartay bismillaah yiraahdaan oo ka daayaan ummadda inay kolba meel ka iibiyaan oo kolba meel maartay aad u liidata ummadda Soomaaliyeed lagu tooro waxaan leeyahay Soomaalida dibaddan waliba la hadlayaa waxa dibadda ka buuxa oo walaal idin sheegaya ragga dibadda iyo dumarka dibadda joogo ee mutacallimiinta ah ee maanta Mareykan jooga ee Canada jooga ee Yurub jooga ee ilaa Australia daadsan ee jaamacadaha ka dhiga ee baarlamaanada wadamada galaya ee wadamada madax ka noqonay waxaan u sheegayaa inuu wadankani qaanidi ku leeyahay oo caalamku qaanidi ku leeyahay anigu waxaan garanayaa maanta wax taalintan maanta aan dhiganay carruurteeda loo dhigo wax ka duwan baa wax ku baran jirnay waxaan hay jirtay waxaan wax ku baranay bilaash bay haayeen hatta qalinka bensal kala ayaa la nasiin jiray kolkaan yaryareen ilaa iyo aan jaamacada ka soo baxnay nin kasta oo imka dibadda jooga rag iyo dumarba calanka buruga qaalan buu ku leeyahay cashuur umadeed baad wax ku soo barateen tiiba dibadda ka daawanaysaan maanta burburkeeda iyo kuwa maartay daadadku qaadayaan iyo kuwa siyaasiyiintu ku dul ciyaarayaan iyo kuwa dabka lagu ridayo ee kolba madaxa la isku gelinayo waa daawanaysiin waxaan ma u jeedaa waad arkaysiin waa inaad u soo gurmataan hatta dibadda oo ka bixisaan talo mid waxun bay noqon lahayd wali ma aan maqal nin professor ah ama gabadh professorada ah oo wadanka u dacweysa oo maarataanay ha ka daayaan dadka gudaha jooga ee siyaasadda sheeganayay umada dhibta ka daayaan wali ma arag waxaan qolada waan baraarujinayaa waxa qolada la yiraahdo mutacallimiinta dibadda u dhooftay ee waliba kuwa maartay sideedan oo kala waqtidii 70-nadii 80-nadii ka baxay maartay jaamacadaha
inaad inaad ogaataan inaad dhammaantiin bilaash wax ku barateen oo cidina lacag idinka qaadin wadankaas wax idin baray maanta wadankii uu gubanayaa baddiisii baa la iibinayaa la googoynayaa dhulkiisii baa la googooyay qabyaalad baa intoo maartay laga dhigay federal ayaa reebelna dawladda suleeyahay reebelna dawladda suleeyahay reebelna dawladda suleeyahay magacii Soomaaliyeed baa meesha laga tirtiray taana waxa sameeyay ninkii loo jiray Gabre maartaan Tigreega ahaa oo dawladda Tigreega u shaqeynayay maanta Tigreegi uu dumay Gabrana uu tagay laakiin cidii uu beeray iyo nidaamkii uu dhigay waxa Soomaali maanta saa u galaya waxa maanta Soomaali saa u galaya hadii maanta sidaa Soomaali ka tanaasuli weydana ninka Erdogan la yiraahdo khayr qabaha ah ee wadanka Turkiga hogaamiya ayaa 2012 ayaa wuxuu yiri hadii Soomaali gacan gumaysi madoobay ku dhacday ay aqbali weyda inaan ka saarno ha ogaatay inaad la qaybsan doono oo qurqur loo qaybsan doono taariikhdii waad ogtihiin kolkii Soomaaliland iyo Soomaalida kale la isku geeyay Istanbul khudbadii awjeediyay bay ku jirtay khudbadii awjeediyay 2012 ay ku jirtay hadayna aqbalaana waan xoreynayna hadii kalena ha ogaadaan in la qaybsan doono oo qolo walba ay qaadan doonto maanta halkaas aan taaganahay waxa weeyaan kala qaybsigii miyaan yeela oon maartaanay qolaba qaybi gaal madooba qayb qaataa iyo ku cadiba mise waxaan noqonaa dawlad maanta runtaan isku sheegaynaa nimanka xamar jooga ee maanta dawladda ay Cabdullaahi Farmaajo ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la raahdo iyo ninka Xasan Xal Khayr la leeyahay hogaaminayaan iftiin yaroo dawladeed amar raja'a anu dawlad weyn oo wali soo baxday ma arkayo laakiin iftiin dawladnimo ayaa ka soo iftiimaya waa taata la rusheynaya ee Kenya ku dadaalayso ee igad ku dadaalayso ee reer galbeed ku dadaalayaan ee khaliij ku dadaalayo ee wax alla wax jiritaanka Soomaaliyeed nacabi ay ku dadaalayaan waa iftiinka yara soo baxay wax lagu duunay waad ogtihiin مثلا Turkiga iyo Ruushku maanta inay ballan qaadeen inay wadanka dhisaan ciidankiisana dhisaan oo badda u dhisaan oo cirka u dhisaan oo dhulka u dhisaan oo wadan jir ka dhigaan haddaba wayna bilaabantay ma waxa la leeyahay kuwani maanta waa mucaarad la leeyahay ayaa la wataayo iga dabada ka wada oo beesha caalamka ay sheegtaan reer galbeedku hogaaminayo ay maartay dabada ka wada oo leeyahay iftiinkaasi dumiya ilaa la dumiya Soomaaliya waxaan leeyahay anu waxaan maartaan nin mutacallim oo siyaasi hadana oo hoobanahay sheekhna ah islaamnimada inaan ku dhinto doonaya iyo wadaninimo waxaan idin sheegayaa sida maanta ay Soomaali tahay iyo sida maartay loo maamulaya iyo sida loo maartaanay kuwii wax maamulaya loo eriyanayaaba ninku miyuu daafici mise ummaddu wax u qaban 24 saacadood nin la caayayo dad la caayayo dawlad la caayayo xukuumad la caayayo oo la ceebeynayo oo saw mucaaradu kii ceebaha intuu hadduu tilmaamanayo odhanayo warsaa wax loo qabto oo saa loo hagaajiyo odhanayay Soomaa heerim ku xigaadil raa'im waar hubbaan doonayna xamar babal ka saaraya xamar baa idinka saarayadaas hadayna macna idin sameynaynin waxa weeyaan wixii ka soo socda Soomaaliya suga iska sugade mar hadii xamar marka la isla soo galo oo nin walba hubkiisa la soo baxo oo warlordski soo noqdaan oo dabeedna maartaanay baddiina la iloobo oo wax walba la iloobo waniga Farmaajo maanta waxa ku filan inuu diiday cid kasta oo ku maslaxay badda kala hadal Kenya kala hadal oo iska wada diiday meel kasta oo loo joogsaday America Sochi oo maray oo Ruusha meel kasta oo Carabta meel walba looga yeeray oo la iska diiday intaas ku filan inuu diiday maxkamadaasi wax ka sokeeyay inuu diiday Soomaaliya waxaan leeyahay qofkii wax garanaya ee muslim ah shahaadanayo muslim weeyaan Soomaalinimadu magaca Soomaalinimada aan badbaadino islaamnimadeenana aan badbaadino intaas ayaan anigu idin soo jeedinayaa waxaan leeyahay yaana maartaanay waliba khaasan dadka dibadda jooga mutacallimiinta oo war wadankiina u soo gurmada